kasta marka oo khaldan oo afka Soomaaliga qalad luqawi ah inaan soo qabto oo dadka bara una iftiimiyo horta waa waajib saaran. magacan aan soo calaameeyay mees ku qoran sidoo uu qoriyay hadii loo akhriyo maxaa soo baxayo waxa soo baxayo madaale ayaa soo baxayo gudoomiyaha gobolka marka magaciisu madaale masamaadaale waa madaale hadii sida loogu dhawaaqayo loo qoro waxa soo baxaya double da Cabdifataax Ibraahim Amiir waa aqoon-yahan shahaadada koobaad ee jaamacadda ka haysta cilmiga afkeena hooyo ee Soomaaliga waa hubaal inaad la yaabayso marka aad aragto qof juhdi geliyay ilaa heer jaamacadeed barashada afka Soomaaliga sababtoo ah Soomaalidu aqoon uma taqaana afkeeda waxayna taas beddelkeed dadaal badan ku bixisaa barashada afafka qalaad oo uu Ingiriisku ugu horeeyo Ustaad Amiir ayaa baraha bulshada dhawaan ka bilaabay olole uu ku saxayo habdhigaalka afka Soomaaliga wuxuu inta badan ka falceliyaa qoraalada ay warbaahinta iyo siyaasiyiintu adeegsanayaan marka ay bulshada wax u gudbinayaan wax kasta marka oo khaldan oo afka Soomaaliga qalad luqawi ah inaan soo qabto oo dadka bara una iftiimiyo horta waa waajib saaran. طبعا warbaahinaduna in la saxa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jiraan sababtoo ah waxay u yihiin indha ay u yihiin bulshadu sababtoo qoraalka ay soo dhigaan waxa daawanaya intaas oo milyan Soomaaliyeed oo akhrinayaan haddii marka qoraalkaas uu khalad yahay طبعا message-kaas khaldan wuxuu gaarayaa dad Soomaaliyeed oo badan inaan saxa marka khaladka luqawiga khaladka airtime kama hadlin laakiin khaladka luqadeed ee soo baxaya dhanka afka Soomaaliga inaan saxa waa waajib saaran waana xirfad aniga aan bartayba oo la iga rababa waxa uu rajaynayaa inay meel sare gaarto aragtidiisa ku aadan inay Soomaalidu iska saxdo dhigaalka afkooda isla markaana ay jaamacadaha iyo goobaha waxbarashadu xoog saaraan sidii afka loo horumarin lahaa afka Soomaaliga wuxuu leeyahay xeer luqadeed oo aan laga gudbi karin sharciyad dhigan oo af Soomaaliga xeer ah oo culimada afka Soomaaliga ay dajiyeen baa jiro ay waajib tahay qof kasta oo meeshaas oo kala joogo inuu qoro ama uu barto qofka marka asagoo aan warbaahintii ama xirfadihii af Soomaaliga asaasiga aan soo baranin ayaa waxa la geenayaa tafatiro oo kale ama la geenayaa telefishinka meesha ugu muhiimsaneed kadibna muxuu khalaadka uu sii daayinaya marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan qofkaas halkaas oo kale la geenayo kale ama tafatira kale ama wargeys bashar waxa ahaada in marka hore dhigaalka afka Soomaaliga asaga uu soo barto si xarfaha isku raacaan astaamaha meesha la gelinayo positionada ay kala leeyihiin xarafka weyn iyo xarafka yar meesha la isticmaalo adiga muhiim waxa ah inuu barto marka hore qofkaas sharciga af Soomaaliga uu leeyahay afka Soomaaliga oo la qoray sanadkii 1972 ayaa muddadii uu burburka ku jiray dalkeena wajahaya dayac uga yimid dadkiisa waxaana laga cabsi qabaa inuu ku biiro afafka sii dabar go'aya haddii aanan la helin aqoon-yahano isku xilqaama sida Cabdifataax Ibraahim Amiir oo kale